Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddaad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar mowduucana haddaad ka hesha like ku dhufo oo saaxiibadaada kale sii gaarsii oo sii share gare waadna mahadsan tahay xijaabka mise niqaamka jilbaabka mise indhashareerka waa mowduucan kaga hadlayno dhaqan xumada kusoo biirtay daayarta Soomaalida gaar ahaan dumarka suuqaba ka mari karayn cawradoodu ay banaanka soo dhigeen mowduucan ayaanu kaga hadli doonaa sanadaha dambe waxaad moodaa in tirada dumarka xijaabka xidhan ay sii yaraanayaan sanadba sanadka ka dambeeyo waxaana aragnaa dumar badan oo awal xijaaban jiray balse maanta aan xijaabnayn oo go ama shalmad yar huwan shaarica magaaladana qaawani ku maraya waxaa aad u soo batay dumarka niqaamka ama indhashareerka xidhanaya iyagoo wejiga ku qarinaya balse jidhkooda intooda kalena uu bannaan yahay waxaan isweydiiyey dumarkeenu ma in niqaamka ay xidhaan baa waajib ah mise inay xijaabka xidhaan waa arrin aad looga naxo inaad aragto gabadh Soomaaliyeed oo wejiga qarsanaysa jidhkeedii kalena qaawan yahay ulajeedkeeduna yahay inay dadka iska qariso iyadoo sidaas u haysato xarago iyo qurux miyuuna Allah subxaanahu wa tacaala arkayn bal u fiirso aayadan alla wuxuu ku yidhi هذه الظواهر إننا إذا أردنا أن ننقذ هؤلاء الفتيات الصارخات وننقذ هؤلاء الشباب الذين تلطفوا بالعار قادتهم الرذيلة إلى أدراب الظلام أولا لماذا لا نتربى ويتربى كل مسلم ومسلمة رسالة إليك يا من أنت الآن في الأسواق رسالة إليك أنت وأنت في طريق سفرك الآن تستمع إلى حديثي nasiib darada qofta dumarka ah ee bini'aadamka wejigeeda ka qarinaysa si aanay u arag iyadoo jidhkeeda kalena qaawan yahay oo aanay waxba asturnayn wejiga oo niqaam u saaran yahay mooye miyuunan Allah arkayn isagoo miyuunan mudnayn in laga xishoodo halka bini'aadamka daciifka ahna ay iska qarinayso dhammaan dumarka Soomaaliyeed ee walaalahaya waxaan kula talin lahaa walaalayaal wejiga inaad niqaam yar saarato adigoo jidhkaaga kala qaawan yahay bilaa xijaabna ah micno ay soo kordhinayso ma jirto ka mid noqonaysaa kuwa alla sheegay ee yiri dadka ay iska qarinayaan balse asturnaantu waa sharaf iyo cisi qof rabbi karaameeyay mooye cid waliba isma asturto xijaabku waa waajib in gabadh walba oo muslim ah ay xidhato laakiin niqaamku waa la xidhan karaa waana la iska dhaafi karaa ugu dambeyntii gabadh walba oo Soomaaliyeed oo fariinteedina gaadho ama daawato muuqaalkan waxaan ku leeyahay walaalay xidhashada xijaabka ayaa ka horeysa xidhashada niqaamka ha noqon inaan iska qarisa dadka balse Allah ku abuuray ka xishoota oo is asturda mar walba iyo goob kasta gabar walba oo xijaabato idin kamid ah waxaan idin leeyahay Rabbi ha idin asturo sida aad isu asturteen asturnaantu waa shay muhiim ah intaas ayaan ku soo gabagabeynaa mowduuceeni aan kaga hadlanay daayarta Soomaalida gaar ahaan dumarka intaan ku kulmi doono mowduuca la xiriira sidaas iyo fi amaanillah balse saaxiibayaal codsi kanaalkayga bulshada wuxuu taagan yahay soo deynta mowduucyo la xiriira arrimaha bulshada qisooyin taariikho iyo sidoo kale faafinta mowduucyo diin ah ku xidhnow kanaalkeena subscribe-na noo saar gambaleelkana furo mowduucana haddaad ka hesha like ku dhufo sidoo kalena sii share gare oo saaxiibadaada kale sii gaarsii waxaanu maraynaa 2.6 oo u dhiganta 2600 balse fari kama qodno intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa ee saaxiibayaal fi amaanillah